السلام عليكم صاحبي kusoo dhawaada channelkeena Cadnaan Yaasiin warbixinta maanta waxaynu ku eegi doonaa dhaqamada iyo caadooyinka ugu la yaabka badan ee adduunka. Haddaba warbixintan ayaa noqon doonta dhowr qaybood. Warbixintan waxay kula socon doontaan qaybteedii koowaad. koowaad aynu ku eegi doonaa warbixinteenan waxa weeye qumbaha oo lagu jabiyo madaxa. qumbaha oo madaxa lagu jabiyo waa caado ama dhaqan laga isticmaalo qaybaha koonfureed ee dalka Hindiya. dhaqankan wuxuu ka mid yahay khuraafaadka ay lahaayeen ilaa berigii hore, inkasta oo laga digo khatarta ay leedahay arrintani. haddana dadka aaminsan diinta Hinduuska ayaa macbadka u yimaada si uu kaahinku qumbaha ugu jabiyo madaxa. dadka ayaa aaminsan in ay tani u horseedayso caafimaad iyo guulo inay ka gaadhaan nolosha. dhaqanka labaad ee aynu ku eegi doono warbixinteena waxa weeye xafladda beedka la tumay. xafladdan waxay ka mid tahay xafladaha lagu soo dhaweeyo sanadka cusub ee lagu qabto dalka Bosnia, iyada oo dadku iskaashanayaan ayay diyaarinayaan quraac ballaadhan oo beed ah oo lagu kariyay malqi weyn. quraacdan ayaa beerta magaalada u dhow la iskugu imanayaa, dabeetana xaggaas ayaa lagu qabanayaa xaflad cunto shiilis ah oo cunto lagu shiilayo, dabeetana xaggaas maantoo dhan lagu xafladaysanaya. mid ka mid ah dhaqanka ugu la yaabka badan uguna qosolka badan ayaa waxa uu yahay dhaqankan. dhaqankani waa dhaqanka isku tuurista qashinka. dhaqankan ayaa waxaa laga isticmaalaa waddanka Denmark, iyada oo dhaqankan uu ka jiray dalkaas boqolaal sano. qoysaska iyo dadka asxaabta ayaa waxay eeganayaan dadka 25 jirka ah ee aanan weli guursan. waxa la yaabka leh ayaa waxay tahay haddaba qofka ayaa lagu tuurayaa qashin iyada oo si wacan loo qoynayo marka hore, kadibna qashin lagu shiidayo oo magaalada lagu dhex eryanayo. dhaqankeena ugu dambeeya aynu kusoo gabagabayni doono qaybteena koowaad waxa uu yahay casuumaadda weyn ee loo fidinayo daanyeerada. dhaqanka la yaabka leh ayaa waxaa laga isticmaalaa waddanka Thailand, iyada oo sanad walba la casuumaad loo fidiyo daanyeerada. casuumaaddan ayaa waxay dhacdaa maalinta ugu dambeysa ee bisha November. casuumaaddan ayaa haddaba waxaa la iskugu keenaa 10,000 oo daanyeero ah iyada oo la sharfayo. dadka Thailand ayaa aaminsan in ay tani u keenayso nasiib. haddaba casuumaaddan ayaa hordhac looga dhigaa waxyaabahan. xafladdan ayaa marka hore waxaa lagu furaa oo la keenaa 2 jaasyahan oo ku labisan dharka daanyeerka. marka labaadna waxaa la diyaariyaa miro iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan oo la isku dul saaray sidii fooq oo kale. marka saddexaadna waxaa lagu jiheeyaa oo la tilmaamaa daanyeeradii la marti qaaday mirihii iyo khudaartii loo diyaariyey.